ninka darajo leh sarkaal booliis ah sarkaal nabad sugid ah sarkaal military ah ama sarkaal asluub ah ee ay ku cadaato baabuurkii meehebel ku qarxay boqolka qof dilay asaa checkpointii ka soo daayay ama baabuurkiisa lagu soo gudbiyay warbixin aanu ka diyaarinay madaxweynaha Soomaaliya oo fariin adag u diray saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee fududeeyo qaraxyada ka dhaca caasimadda Soomaaliya warbixintaasina waa idin soo gudbin doonaa in uu qof $700 iska qaato soo Mareykan jiifa ama Yurub jiifa ama Afrika jiifa ama gurigiisa iska jiifa oo nimaanay wiil Soomaaliyeedna oo 200 qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo carruurtiisa awoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso wax suurtagal ma aha sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in la xisaabtamayo shaqaalaha dawladda Soomaaliya iyo xuquuqda qaataan isku mid aysan naqanaynin shakhsiyaadka lacagaha badan qaatay ciidamada xoogga oo shaqaynaynin warbixin la xiriirtan aanu ka diyaarinay waa idin soo gudbin doonaa qaybna waxa ka naqan doona madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagreen ayaa beedhaba maanta kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi isla markaasina ay ka hadleen shaqaqadii ka dhacday beedhaba maxaa ka soo baxay warbixin aanu ka diyaarinay waa idin soo gudbin doonaa u diyaar garooba qodobadaasi oo dhameystiran anigoo ah Mustafa Maxamed Ali kaayuu soo jeedinaya Doobiya Media iyo Doobiyo barahan ku leenahay social media balse adigana daawanayo haddii tahay boqoshadaada koobaad aan soo boqodo subscribe-ka inoo saaran fadlan calaamad gudaha subscribe-ka taabo gambeelka furo si aan macaamiil joogto u noqono sidoo kale barteena Facebook haddii follow-na soo dhig fadlan follow-na soo dhig video-ga laag noo saar asxaabtaada la sii wadaag u sii share garee si dad badan u gaarto waana ku mahadsantahay iminka haddii aanu gudagalno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu sheegay in saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan sida booliiska militariga nabad sugidda iyo sidoo kale ciidamada ay yihiin kuwa fududeeyo qaraxyada ka dhaca caasimadda Soomaaliya isla markaasina qaraxyada ay yihiin gawaarida lagu soo rakibo kuwa ay banaanka magaalada ka soo galaan isla markaasina soo dhaafaan checkpointiyo fara badan waxaana xusay madaxweynaha Soomaaliya in marka ay dhacdo qarax isla markaasina dad badan ay ku dhamaadaan sargaalkii fududeeyana ay noqon doono markii baaritaanka la sameeyo mid la marsiin doono sharciga ninka darajo leh askari waana asal sidii kama marre ninka darajo leh sarkaal booliis ah sarkaal nabad sugid ah sarkaal military ah ama sarkaal asluub ah ee ay ku cadaato baabuurkii meehebel ku qarxay boqolka qof dilay asaa checkpointii ka soo daayay ama baabuurkiisa lagu soo gudbiyay oo hor socday ay ku soo cadaato baabuur kasto qarxo magaalada Muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyahay bilaa calaykum checkpoint soo maray meel askari ama booliis ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama military ha ahaado ama asluub ha ahaado meel askari taagan yahay soo maray haddii hal uu ka sibqaday oo ogaal la'aan ama si uu ku soo maray asoo dadaalay oo ka soo baxsaday oo hal labaad ka soo baxsaday hal afaraad iyo hal shanaad iyo hal lixaad iyo hal tobanaad inuu ka soo baxsado macquul ma baabuurta booliiska riboorada ay siiyaan waxaa ka mid ah inta badan baabuurta qaraxyada inaan magaalada Muqdisho lagu dhex sameynina ayagoo samaysan oo rakiban ay magaalada soo galaan kilomitiraadka xagga inay ka soo dhaqaaqaan soo galaan in waliba raadiyaasha booliiska laga naadiyo leeyahay baabuur noocaas ah la tuumsan yahay oo qarax sido haddana baabuurka uu yimaado qarxo oo dadka laayo corruption ka mas'uul ah inta aqoon yari ama dadaal ayadoo lagu jiro soo sibqatay waa yar tahay percentage yar waa bini aadanahay wax waa naga faka karaan laakiin waa number yar uu noqonaa dhanka kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta wuxuu carabka ku dhuftay in la isla xisaabtami doono shaqaalaha dawladda qaybaheeda kala duwan isla markaasina macquul ahayn qof dalka dibadiisa ka maqan gurigiisa jiifa 700 iyo in ka badan malaayiin dollarna qaato sidaas darteedna uu jiro askari Soomaaliyeed oo qaato 200 oo ku dhaawacmayo kuna dhimanayo asigoo sugaya ammaanka iyo la dagaalamayo kooxaha argagixisada ee khawaarijta al-shabaab
aysan macquul noqonaynin, sidaas darteedna loo baahan yahay in la sameeyo isla xisaabtan wayna muhiim tahay maadaama aysan aqliga galaynin in qofka amniga sugayo uu qaato lacag yar oo 200 oo caruurtiisa ka agoontoomayo waalidkiina ka dhimanayo, sidaas darteedna mid kalena oo qaadanayo dollar fara badan. in uu qof $700 iska qaato isagoo Mareykan jiifa ama Yurub jiifa ama Afrika jiifa ama gurigiisa iska jiifa oo imaanay wiil Soomaaliyeedna oo 200 qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo caruurtiisa awoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso wax suurtagal ma aha. agaasimaha habeenkii oo dhan soo jeeday oo mid siyaasi oo xildhibaana oo ugu talagalay bari oo dhan inuu jiifo habeenkii oo dhan haddana ay soo sheeko kula soo jeedo oo siyaasad ku dhex jiray ilaahay ku dhaashay subaxdii goor ma soo kacay shaqo ma qaban ahmiyadda uu agaasimaha u leeyahay hay-adda ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo ayaa maanta kulan waxa ku qaatay odayaasha dhaqanka soo jeedo Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Laftagareen, waxaana kulankaasi uu ahaa mid ujeedkiisa ka dambeeyay kadib shaqaqadii ka dhacday maalintii shalay ee magaalada Baydhabo iyo sidoo xasilooni loogu soo dabaali lahaa. odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha ayaa gorofeeyeen xasiloonida iyo sidii nabadda loogu soo shaqay lahaa, balse markuu kulanka soo dhamaaday oo la qaatay madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, odayaasha dhaqanka ayaa warbaahinta waxaa laga siiyay waxyaabihii ka soo baxay isla markaasina ee labada dhinac ay ku wada hadleen. hadalay arrimo amniga iyo shaqaaqada yaraaytay oo ku dhiidi shalay magaalada Baydhabo run ahaantii waa wada hadal dheer iyo qaabka nabadda la isla falanqeeyo odayaasha dhaqankan in doorsho qaadaan dawladana doorsho qaadato yalla ku wada hadalay waana waa iska waafaqay runtii wali ka amaanana odayaasha markasta oo wal dareeman iyo dawladdu baal istaaganyiin shacabkaas dhabka ka dhiyaaw iyo waxyaabo magaalada saameeyo amni xumada sheenan iyo doorsho ku qaadada walina ballan qaadanay in kaalantiyo la hayaan ku jeesdan guud ahaan dawlad goboleed Koonfur Galbeed sida xalay madaxweynaha ka baaqiyo amniga waajibo markas in la sugo, laakiin wal kasta oo mayla raayus nabadda la ka hormariyo karo ama la ka sheeno karo in mayla raayus furanyiin madaxweynaha hore uu soo sheegay walina hadhawaayna lan kasta oo qaab nabadeed walka weydiiyo dawladdiisu deegaansheeyo odayaashana taasalan ballan qaaday iyo madaxweynaha safayle aan la fuqran yaan isla afgordaan ununa hadhawaayana guud ahaan wasiirada qaabilsan arrimo amniga iyo saraakiisha yoona waa wali la kala dardaarmay in odayaashana la shaqeeyaan amnigana sugaan iyo la kala dardaarmay runtii amniga wal gorgortan galaawma wal siyaasad galaawma wal shakhsi gaar ah isku leenama amniga dadka dhangal leh deegaanka dhangal leh dawladnimada dhangal amniga leh runtii ku xugno wal kasta oo dhiib, laakiin amniga markasta gorgortan ma galaaw wali rajeynay hay'ado waa tahay akhyaartu waanu jecelnahay guud ahaana intaasi ayaan ku soo gabagabaynaa tan iyo mar kale intaan kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadiin iyo kulan kale oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.